kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal telefishinka STN ayaad nagala socotaan waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha bulshada oo maalin walba khamiis ah aad ka daawataan muuqaal baahiyaha STN barnaamijka isbuucan waxaan ku soo qaadan doonaa furiinka oo ku soo dhaxbatay bulshada Soomaaliyeed xafiiska qaadiga ayaa sheegay in sanadihii dambe ay sii kordhaysay tirada qoysaska burburay dhowrkii sano ee la soo dhaafay in guurkii uu burburay waa shay cad ayuu yiri maxaa yeelay maalintiiba hadii 15 kiis oo furitaan ah la geeyo maxkamadaha qaadiga iyadoo wadanka uu leeyahay konton qaadi waa arin naxdin la ayuu yiri waa 15 kiis oo furiin ah ayaa dhacda maalin waliba ayuu yiri oo loo geeyaa konton qaadi waa 750 furiin ah oo ka dhac dalkan Kenya gaar ahaan goobaha ay degan yihiin Soomaalida ku-xigeenka xafiiska qaadiga ee Kenya wuxuu yiri Gaarisa ayaa u badan wajeer ayaa ku xigto magaalada Mandera ayaana ugu dambaysa tirada Gaarisa waxay tahay 450 wajeer 300 halka Mandera ay tahay 200 oo kiis oo furiin ah bil waliba dumarka ayuu sheegay in boqolkiiba 95 ay yihiin kuwa dalbada furiinka ay yimaada maxkamadaha wuxuu intaasi ku daray in dadkaas ay u badan yihiin dhalinyaro isugu jira dumar iyo ragba kaasina waxa waay qaadiga dalkan Kenya oo sheegay furiinka inuu ku soo dhaxbatay bulshada muslimiinta ee degan dalkan Kenya gaar ahaan Soomaalida haddaba shacabka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi sidee bay u arkaan furiinka ku soo dhaxbatay bulshada Soomaalida ee dalkan Kenya balan daawano السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمنتي من الدين سلام وعبد الناصر هذا المقعيقة سؤال شاء جورك دق محا سبب كرا كل دور شيء يا سبب كرتا وحاكمي ذا lack of communication لبدا قفوا إسقوا أما وذي جوجا هذا constantly أي حريرين أو أي واحد سويدينين قفل بعلده أما دبكة هيستو وقفك كله كتبينين وأهرنا سبب كرتا لبدا قف هنا معناها أي إسقفان أي نسفهم ويان waxyaalaha kale oo guurka in labada qof ay kala tagaan sabab kara waxa kamid ah misbehaving inuu mid kamid ah inuu sameeyo arin qofka kale ka xanaajinayso oo ay kamid tahay ninkii oo naga kale la kulmo ama naagtii oo nin kale la sheekaysato waa arima sabab kara macnaha ama ku kalifi kara in reerkaas uu burburo waxa kale oo kamid ah labada qof inay kala tagaan financial crisis ama qarashka oo maxaan ku dhahaa waxyaalaha basic needskii oo ninka ragga ka soo bixi waayo oo marka gabadhina ay ugu dul qaadan waaso iyo sabar la'aan waxyaalaha saas way fara badan yihiin maadaama hadda qof ana iska socdo aan arintan la soo kulmay laakiin waxyaalaha fara badan kuwaas iyo kuwa kale way jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad haddaan arrintan u gudagalo furintii horta waxa badinaya dhalinyarta iyagoo labadii qof isbaacad baranin oo yar degdegaya oo wax laga yaabo maalin ama laba isbarteen ayaa biri ka maalin jacayl taaweyn baa soo diyaarinaya iyagoon isbislaynin waraad su baran kadibna boqol iyo toban farsamooyin baa soo baxaya hadhowto kala soo baxaya hadhowto marka la isbarto waa la isnaacaya sideedabana waxa degdeg lagu bineeyaa degdeg baa ay kala dhamaadaan waxaana lagu degdega mawcana marka horeba in laga fiirsadaa wacan marka arig waxa u sabab umaleeyaa boqolkiiba 9 degdega ayaa u sabab filaya marka hore in la isbisleeyo oo la isbarto oo si fiican la isu barta ayaa wacan moogtay marka taasa u sababa boqolkiiba 9 marka dhalinyarta waxaan kula talinayaa dada soo kacaysa waxaan kula taliyay dadamka joogtaba in lagu degdega maaha yaan lagu degdegin marka hore hal isbarto kadib marka la isbarto marka hal soo midda kale waxaan kaloo aan ku talin lahaa in la isu sabro sabarkuna waa qaalay in la isu sabro labada qof wixii dii ay ka fursawaan ay noqoto mooyaane xaaladdu ay adkaato mooyaane oo si sahlan in aan lagu degdegin degdeg waa midda kale haddaan yaro kaftala ku daro habla dee barigii hore yar qaali bay ahaanoo boqol halaad baa laga bixin jiray imkaalkii boqol halaad bismillaah magacay waa maxamed mukhtaar axmed
haddii aan fikirka ku dhibto arintan oo furitaanka waxaa keena waxyaalo badanaa keena anta kuma soo koobi kara laakiin waxaa mar walba diiradda saaraynaa ama u badinaynaa is-aamin la'aanta aamin la'aan haddii la waayo hoogaha yar ulayso badan baa imaani marka gabdhahan hoogaha yar ayaga shakidooda badan wiilasheena naftooda dee waa iska hadal dhibkooda iska badan laakiin hasi ahaatee guri haddii dhaganaantiis wanaagiis la rabo waxaa mar walba diiradda saari karnaa hooyooyinka inay dulqaad iyo sabar ay sameeyaan maxaa yeelay hooyooyinka haddii sabar laga waayo meesha waxa soconaya ma laha guri dhagan oo lagu nabad aani lagu abay haddii aad aragto waxaa waaye hooyooyinka 100% sabarka iyo guushooda iska laha nooc badan buu leeyahay marka furitaanka oo keena ninka dhalinyarka ah oo siga hooyadiis gabadha markay soo guursado hooyadiis u keeno hooyadiis iyo gabadhaas ma heshiinayaan waxyaalaha kamid tahay oo in la kala tago adiga haddii hooyadaas gabadhii oo adiga soo guurtay hooyadaada hoogaha yar hadal yar ku celiso waxay leedahay way haddii asaan ula hadasho waa kolley waa soconay ay leedahay arrintaasna wax socon kara ma ahaan waa arrin u baahan inay ulmada ka hadasho aan dadka bulshadana ka hadlaan u baahan waay dhibaatada ugu weyn aan hadda saari kara waxaan leeyahay wiilasha naftooda inay hooyadooda iyo gabadha ay soo guursaday inay kala saaraan oo ay dhahaan hooyayda gabadhan anaa soo guursaday in la ilaaliyo u baahan tahay xuquuqdeedii gabadha xuquuqdeeda in la ilaaliyo waalidkan xuquuqdiisa la ilaaliyo mar walba waalid ma qaldamo balse wixii qalalaas ay imaanay si ugu imaan lahayn wiilka laga rabaa waxaa ka mid ah gabadha markay la soo guurso guri soo degde waxaa leeyahin haye hooy u maamul marka ninkii ragga hooyadiis haddii la soo dejiyo gabadha wuxuu leeyahay hooy u maamul hooyadan waa dareemi kartaa arrimo badan baa iska leeyahay maamooyinku haddii hoogaa hor u weynaadaan hor u bataan uleeso badan bay leeyihin sida u badan ay leedahay wiilkii sanway ama gabadhii wiilku waa isfahansan yihiin waxaa laga yaabaa inay caawo gabadha markii ay hoogaa yar ay la soo daristo isfahansan yihiin subaxdii iska aado shaqadiis isagoo weliba quraanin inay laga yaabo maamad ay dhahdo gabadhan wiilka ma danayso quraama laakiin gabadhii wiilkan waa isfahansan yihiin maxaa yeelay xalay ilad baa jari karta meesha arrimo badan baa soo hoosgala labada gooska markay isla joogo maamada laakiin gooska arrintaas gudaha ma fahansano ay leedahay ninkan iyo gabadhan in la kala dirmo hal kale malahay leedahay iyada nafteeda waxay leedahay wiilkan gabadhan baaha baa ku dishay waxaasna waxa oo yani arrin labada qof isku fahansan waay gabadha la rabay hadda maqrabkii inay hadda asho karin wayso oo si jarar awoodoodii marka wiilka inay wada laga rabay hooyan asho u soo qaadanin hadee kulay adaa ay magan meesha laga rabay waxay leedahay hadii ay imaado ninkan haddana asho ma bala halay saakan saana ku beedan wixii meesha ka jiro ma fahansano marka waxaan la helahay hooyooyinka iyo wiilasha hoogaha yar marka inay isfahmaan gabadha la soo guursadeen la heshmeeyaan lagu dadaalo si loo heshmeeyo ay meeshii wanaag iyo kalgaal u imaadaan aad iyo aad baa qalad ila tahay maxaa yeelay aruurta iska dhaafo gabadhi adiga furtiyaan la rabaa inay intii aruurtaas hayso horta biish maxaa yeelay aruur baa ku haysa aruurtan waa durriyatan dajiban waay ni'mada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinay mid ugu sarreyso waay marka intaas ni'mada ilaahay adoo ku siiyay inaad ku iyaarto ma gabadhii aad dhahday aruurta maadaama adiga lagu furay aruurtan waa ku raacaan hadal musonay ma aha maxaa yeelay waa inuu isaga beele gabadha ilaa lagu guursanayay hatta haddii la guursadano aruurtiisa beelana laakiin inta la guursanin aruurta inuu isu ku beel waay barina ma aha taas haddii la fahmo hatta sharciga in la tigso aaminsanahay waxaa ka mid ah aan hadda ku sheegay walaalkay hoogaha yar ulayskaas daraadeed meesha ugu badan ana hadda dhihi karo nin hadda aniga saaxiib nahay markii aan afar haas buu soo guursaday afartan waa kala tageen baaritaan kadib markii aan sameeyay wuxuu aad ziiradiis u badanay tahay hataa in uu yiri way tii afaraad ma guursaday ha ma kala tagnaa inta aad noo sheegay gabar ma guursanay maxaa yeelay maamadii iyo wax isfahmi waayeen haaska soo guursaday aniga markaas waxaa diiradda saari lahay wiilka in hooyadiis iyo gabadha isu kala saara maxaa yeelay meeshan cadaalad baa loo baahan yahay gabadha soo guursatay nafteeda inay freedom laga dhigaa rabtaa guriga hor u haad marka guryaalka hurku ma aan dhihi lahay gabdhaha ayaga naftooda gumeys inay ku jiraan aaminsanahay 100% waxa way wiilish oo hooga yar adii koona marayaan oo naaga hadii naag laga daba keenay la hooga yar ulaas baa jira naagaha la guursanay badana oo gabadha markii gabar kale aniga waan soo guursanaa laaw marka la tashtoon mid ogolaanaysa inoo jirta mid aan ogolaanayna waa jirta madii aydan ogolaanin la soo guursado 100% waxay u badan tahay gurigeed inay burburo ma fiirin ma danaynin yani mustaqbalka ay ku jirto in amad ay ku jirto ma fiirineen tan la soo guursanay bise ninkan naftiisa hadii tan ka burburi lahayd inuu tuu kale ka darsado wax faa'iido u leeyahay laba uu rabay mari hadda tan hadii ka baadano hal buu joogaa soo halkiisa iska hayso kula dardaarmi lahaa hadii uu si kala saari karin dadkii kan ka hadlo waxyaabaha macnaha oo dumarka iyo ragga inay kala tagaan aniga fikir ahaanta waxay ila tahay horta bariyahan waagi hore dumarka
macnaha ii sheeg adiga waalidkooda macnaha ay ka amar qaadin jireen waalidkooda bixin jiray si wanaagsan baa lagu bixin jiray waalidka markuu bixinayo macnaha gabadha way ka kalsoonaan jirtay mase anaga aan ka jirnay anaga baadiyaan ku soo kornay magaalo macnaha waan kuma soo korin baadiyaan ku soo kornay waxaan arki jirnay gabar oo waalidkeed xishmeynayso oo ka dambeynayso waalidkeeda maartay markuu dhaxo aniga ninkaan baan kugu daray oo markuu dhaxo maartay waalidkeeda maartay oo saas ay u raacayso ninka ay u raacaysaan ogaan jirnay hadda sababahan hadda bariyahan wax waaye dumarkii magaala la imaaday teleefanaha la wada qaatay oo gabadha markay ii sheeg adiga shukaansi iyo waxyaabo noocaas ay baratay gabadha madan waxa waaye markuu ninka guursado oo markay ay guursadaan ay guriga say wada joogto hadalkeeda waxyaabo maartay ii sheeg adiga ninka daruufo haysto waxa la rabaa ninka wuxuu keenay gabdhaha sababahan bariyahan wax waaye ninka wuxuu keenay kuma kalsoona ninka wuxuu keenay kuma kalsoona waayo waxa la rabaa riga ninka adiga oo ninkaada ah wixii ku keenay waa in adiga ha yaraadan ha badanaadan horta labada qof markay isguursadaan dib i dheef labadooda waa inay isku sabraan loo baahan yahay oo sabar la muujiyo oo isku sabraan oo isku dadaalaan oo loo baahan yahay gabdhihiina bariyahan waxa waaye telefoon iyo Facebook iyo waxyaabo noocaas la bartay rigi ka mar oo haasaskooda macna ninka rinkay ka ama mar qaadanayaan maartay waxyaabaha noocaas aan leeyahay dibka keenay ay ninka ay kala tagaan because waxa way ninkii waxa way sheeg adiga madala biilkiisa nool maalmeedkiisu ku dagaalamaya oo sheeg adiga wax yar buu haysta wixii haystana macna waxa way inay isla cunaan oo iska barkaysaan baa loo baahan yahay gabdhihii bariyahan waxa way dulqaadka waa ku yaraaday lacag far badan bay barteen ma fahanti waxyaabo noocaas aan u maleynay in maartay ay dhibaatada keenayso ilaahay quraankiisu soo ku yiri inna kayda kunna cadin buu yiri naagaha wax macna waxa way sheeg adiga waa waxa laga abuuraa liiri halkii badan waxa la rabaa dumarka waxyaabo badan baa iska jirto iyaga naftooda maartay oo borbaleena iyaga dhina naftooda gabadha matalan ba macna adiga qabtid haaskaada wala ay noqon kartaa waxyaabo badan baa koos gareynaayo oo macna in adiga u sabirtid oo u dulqaadatid la raba riga naftooda waxa way waxyaabo bini'aadanka isku dabcad maaha waa kala dabcad badan waxa way aniga waxa ay la tahay inay riga macna iyaga naftooda riga ay u taraan ay macnaha ay sheeg adiga oo sheegada ay dulqaataan oo dumarka ay u dulqaataan waa xaasaskooda ay jecelaadaan ma fahanti adiga ay sheeg adiga inay dulqaataan xaasaskooda u sabraan oo wanaag ay ku wada noolaadaan gabadha waxa waaye in loo sabraa loo baahan yahay labadoodaba inay isku sabraan reerka markaas baa maartay horumar weyn u gaari karaa labada qof haday isku sabreen waxa waaye meesh maartay faa'iido kama imaanayso qaxootiya calooshanadii oo dhan baa banaanka taala ninkii ragga ahaa iyo heerkii waxaa dhumahaya imkaaniyaadkii qofku uu ku shaqaysan jiray iyo qaabka uu shaqayn jiray iyo wax fara badan baa uu gafahayaa ninkii in la isu samray ahayd markii la isu samri waayo oo islaantii ay odaygii banaanka u eriso hadii ilaah ku soo galiya caruurtii de ilaah baa isbadaya ma garat marka taas waa taas la shukra cala alwaajib waa ilmaheedii markii laakiin dulqaad la'aan bay samaysay odaygeedii iyo iyada inay u samirtay ahayd isaga ilmaha ka dhalay in ilaahay bari wax siiyaa suurtagala shalayba macaan baa laga yaabaa inay isku guursadeen arooskoodu inuu qaali ku dhacay baa laga yaabaa habartan odayga nooca u eriyaysa marka kadib haddana ma sii maarmaysa wiilkeedii iyo ilmaheedii ma sii ilaalinayso iyo gabadheedii waxay ka qayb ka noqonaysaa ilmaheedii si haddana ay magafi iyo ugu geli lahaayeen iyo maxaan ku dhahaa gabadheedii sida ay garoob ku noqon lahayd durba iyada iyo gabadheedii ay oo ilma haysta labadiiba ay isugu iman lahaayeen bay haddana ka qayb noqonaysaa ma garatay iyadiiba haddana guur kale sii raadaysaa ilmo yar bay raadsanaysaa ma garatay odaygeeda inay ku noqotay loo qaatay meesha ay wiil yar ka soo xaraynayso ma garatay marka waxaa iman haya gabadheedii oo ilmo wadata iyadii oo ilmo wadata wixii oo dhan baa isu wada iman haya wiilkii oo magafo meel lagu xidhan yahay problemka noocaas wuxuu u baahan yahay barnaamij xeel dheer oo looga hadlo aqoon-yahano ay ka hadlaan dad waxgarado ay ka hadlaan culimadu ay ka hadlaan khaasatan culimada ku casuuma barnaamijkan isaga guurka faraha badan ee qaaliga ay maalin walba ka qayb galahayaan ay xalaaleynayaan $10,000 ay gabadh ku mehelinayaan $20,000 100,000 diyaaradaha lagu galbin ma ka hadlaan daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii arrimaha bulshada furiinka oo sii kordhaya waayahan dambe waxaa si weyn uga hadashay culimada bal aan daawano mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo si weyn uga hadlaya furiinka iyo waxyaabaha sababa aayadahan aynu dhageysanaynaa waxay ka waramayaan nidaamka qoyska ilaa 19 aayadood
saddex ka midii waxay ka warramayaan oo u soo horeeya dhismaha qoyska haddii ay tahay guurkii iyo galmadii xalaasha ahaa 16 kalena waxay ka warramayaan furiinka marka waxaad arkaysaa culays inuu qur-aanku saaray arrinta furiinka kelmaddeenu taasay ku saabsantay axkaam badan buu leeyahay furiinka ama kala tagga qoysku laakiin mid aad inoo khuseynaysa bulshadeenna islaamka ah iyo gaar ahaan innagaba ayaa qodob ka mid ah ka soo qaadan doonaa asbaabu dalaaq fii bilaadina dadkeenna iyo dalkeenna sababaha keena furiinka waxaynu uga jeednaana waxa weeye lilxadari minha si looga feejignaado oo qofkii imika xaaslana waa hawl u taalla inuu iska ilaaliyo kii ku sii socdaana uu ku xisaabtamaya wa kullunaa mas-uuluun dhammaanteenna mas-uuliyad bayna saaran tujaaha ahlina wa ummatina ehelkeenna iyo ummaddeennaba waajib bay naga saaran hadday tahay dabadda iyo hadday tahay gudahaba asbaabta ama sababaha qaarkood waxa weeye qaar daakhiliya oo labada qof la xidhiidha sababaha furiinka keenaya qaarkoodna waa khaariji oo qoyska dabadda kaga imanayaan ilaha aan ka diraaseeyey ilaha weeye markaan eegay masalooyinka shareecada nala soo moodayo na loola imanayo su-aalaha nalaga weydiinayo dabadda iyo gudaha inahaasaa iga muuqda wax kalena waa lagu dari karaa waxaa la yidhahda soomaalidu ay ku mahmaan xarkageel ma wada xidhaan bay idhaah hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan macnaha rag oo dhammi dumar ma hayn karo weye dumar oo dhammina rag ma hayn karaan intaasoo nin baan hayn karaynin oridii intaasoo orihina raggii baan ninkeedii baan hayn karayn waxaa kow ka ah ama u soo horeeya 12 qodob ee aan dareerin doono 12 qodob waxaan odhan karaa mid waliba muxaadaro 10 page bay noqon kartaa intooda marka la isu geeyana risaalad baa laga qori karaa ama buug nusuusta kolley way iska caddahay loo soo qaadan karo laakiin iqtisaada bilwaqt waqtiga innagoo ku lexe jeclaaba inaan dareerin doonaa midda u horeysaa waxa weeye tarbiyada iyo xagga dhismaha ubadka oo aan lagu dadaalin oo wiilkiina aan loo diyaarin inuu oday noqdo ama reer dhaqi karo inantiina aan loo diyaarin inay hooyo noqoto wiilkiiyo gabadhu siday iskuul isaga dhiganayaan ee biology iyo chemistry iyo xisaabta loo akhriyayo unbay isjeclaanayaan cerkaasay isla tegayaan ayaamo dhulkay qaniinayaan marka dambena waxay adinanta in la baro fannigan zawaajka iyo xuquuqda xaasnimo oo loo sheega dhaqaalaha guriga ubadse u wadi lahayd nin sida loo wado sida loola dhaqmo siday ahaan jireen hooyooyinkii iyo ayeeyooyinkii soomaalidu inanta intaan laanbo bixin baa duruus aad u fara badan la siin jiray dabeedna iyadoo wax badan xafidsanoo waaciya ayay reersaa ku xilqaadi jirtay inankuna saasoo kale u ahaa marka xuquuqdii xaasnimo xuquuqu zawjayn la odhan jiray labada qof kol haddii aanay garanaynin hawshaasi qabyo badan baa ka imanaysa waxaa ka mid a suu-ul khuluq walcinaad dabeecaddii oo labada qof midkooda ama labadoodaba ka xumaata xigmadda ilaahay sida badan waxay keentaa in ninka qaboobna gabadh kulul ay ku hagaagto gabadha kululna nin sidoo kale gabadha qaboobna nin dabacsan oo alla isku dheeli tiro wayse dhacdaa laba inay adag isku hagaagaano qolada riwaayadda raadiyaha waxay sheegi jireen laba ay magacooda ku sheegi jireen canaad nuur iyo cibaado yooma labadaasi markay isu baxaan waa kala carar ayaa warkooda ku dambaynaya marka akhlaaqdu hadday adkaato iyadana dayixii wuu soo baxayo iyo hadduu soo baxay makabaad u toli ayuu reerku ku dumayaa ilaahay baana bixiye laakiin kolleyba akhlaaqda wanaagsan iyo reer magaalnimada iyo arrinta diinta wax la barto weeye lagu dadaalo waxaa ka mid a cadamu alikhtiyaari aw alqanaaca cinda zawaaj labada qof marka hore isguursanayaan inaanay isku qancin ama isdooranin wasaa'il waxay iska arkeen atawaasul meelahan la iska daawado marka sawir buu isagu u soo qariyay ama iyadaa u qarisay ama xaqiiqadii buu mid khilaafay kadibna markay iska soo horbaxeen bay isku dhacayaan ama aan isugu ducayno ayay waalidiintu yidhaahdeen dabaka riixaasay isku guursadeen kadibna way kala didayaan meeshana waxaa loo baahnaa arag iyo wadahadal iyo heshiis iyo isafgarad ila heshiiskii u qaalisanaa ayaa la wadagelayaa taasina waxyaabaha keeni kara wey labada qof inay kala dhaqaajiyaan
waxaa baabkaa soo gelaya arrintan soomaalidu ay dhaqankoodii iskagaba biirtee ah nin inuu inan farax xumeeyo oo uura yeelato kadibna lagu qasbo inuu ku qaato inkastoo lagu qasbo sidaynu aragnay wuu iska furaamo xaalka isagoo ka cararaya marka hore wuu iska meheriyaa kadibna iska magaalaysuunbuu dhahdaa kuwan isu meherinayaana taa way ogyihiin laakiin caruurtii bay waalayaan oo waa dhaqan xunoo runtii u baahan in la saxo waxaa ka mid ah mukhaalafaat sharciya fi zawaaj wa cinda zawaaj marka labada qof ay isguursanayaan iyo markay wada joogaan bayna shareecadda khilaafaan waxay ahayd in lasoo maro awliyaa ulumuur oo inanta weligeedii uu guuriyo daayartii way isla baxsanayaan hadhowna marka ay kala xiiso dhacaan dee xalaal bay suma yihiin bay leeyihin baantadan ay gabadhii weydiinaysa markii ay wixii ay weyday ka soo bixi waayebaa waxay leedahay war markii horeba waalidkaynu dhaafnayo xalaal iima ihid waan iska tegayba mid kalean guursadayba maya anigaa ku qaba waaba la kala dhaqaajiyey sidoo kale waxa iska badan inuu diinta caayo ilaahay rasuulka iyana ay ka soo cabato ama iyadiina ay caydo ama taariku salaad bay tahay iyo taariku salaad buu yahay mukhaalafaadka sharciga ahayna marar badan cabasha ka timaada qoyskuna wuu ku dumaa mid walbana arrimahan xal bay leedahay waa in xumaanta la suuliyo si xalku yimaado waxaa ka mid ah faqriga iyo badaalada shaqola'aanta bulshada haysata wax badan bay sababaysa marna maal la waayebaa qoysku ku burburaaye masaariiftii keeniya ma hayo marna maal la helaabaaba la isku dilaaba oo dadka dibaddu had iyo jeer waxa yara carruurta la siiyo iyo intay wada shaqaysteen iyo sida loo kala jiidanayo ayana leedahay kiishadaydaan ku shugayaa reerkayagaan u diraya isna uu leeyahy ma waa xaggayga dayna kala kaxeey noo qaybi ayaa lagu kala dhufanaya reerkii uu ku kala dhaqaaqaya badaalada ama aan idhaahne shaqola'aantu mar baanay dhab ahayn oo cadamu shucuuri bilmas-uuliya ninkii aanu dareenkiisu hagaagsanayno aanu ehelkii u shaqaynayn isagoo shaqo heli karaya dabakaayadaasuu iska fadhiyaa halkaasuu ka sheekaynaya ooridiisiina kolay qaadabay dul fadhidaa taasina waa raganimo xumo iyo qoodhnimo daro bulshada in badanoo ka mida haysata waxaa ka mida waxaan la idhaha balwadda balaayada u badanee bulshadeenna burburise weeye maamul iyo qoys intaba qoyskanaynu sheegaynaa hadduu jiri waayana qof iyo qaran toona jiri maayo qof hagaagaya iyo qaran hagaagaya toona ma yaalla haddii qoysku burburo markaa ninkii wuu iska qaylayaa gabadh labaad buu qaadkuba u noqday wixii uu soo helaaba afkiisa dhaafi maayo ooridii iyo ubadkiina halkanay ka qaylinayaan kii isagu intiisa urursadayna wuxuu leeyahy meelahaasaa laga masruufa u dacaydaynaya kii isagu aan qaylina intii ilaahay siiye biiriye ku shaqaystay ee halkaan dhalaalaya iska wanaagsanna wuxuu leeyahay sacuudiga lacag laga siiya carabta lacag siisa isaguna intiisii waa kan baanan kale ku shubay wadamo kale ayuu ku caawinayaa oo qaadkiibuu dollar ku iibsanaya qoysaska waxyaabaha burburiya cabashadu in badan ka timaado wey annagoo baktiyayno oo caanihii ubadka aan lahaynin buu halkan kii dhaadheeraa ee mandhabkii iyo fadhibaradkii ayuu liqliqaya halkanuu ka geeraaraya si kale kolka loo eego mar wuu qaadiraysanye marna waa xaraaraysanye marna waa marqaansanya xaaladiisu caadi ma aha marka hadduu saddexdaa xaalo ku suganya de waa nin waali iyo miirqab u dhexeeyo islaantii iyo ubadka way isjirayaanoo qoyska saasuu ku burburayaa sababaha waxaa ka mida khiyaabu zawj ninkii oo maqan ama gabadhii oo maqan waxay doonaysa inay xambaartay dhoofiso ama isagaa doonaya inuu xambaaro wuu xambaari kari waayaya deyna kala kaxeebaya maysa ama way tahriibtay ama wuu tahriibay waxaa sidoo kale ka yimaada maqnaanshahaasi markuu dheeraado inay gabadhu xamili weydo dabeetana cabasho ay keento fasakhaad qaadato ama uu soo furaba sidoo kale shaki baa yimaada in war la gaadhsiiyo la yidhaahdo warqaar baa ku agwarwareega islaantii aad ka maqnayd dabeetana uu yidhahna naanadah wabaanu kaa dhaqaajinoo kaa shakinaya marka xalku waxa weeyaan duruuf adagoo aad u adagoo timaado mooyaane ninka iyo xaaskiisu inay wada noolaadaan ubadka iyo oorida saasaa u fiican waa zawjayn laba sida labada kabood oo kale beer isku aweye oo isku lamaan oo kala maarmayn waxaa ka mid a sababahaas cadamulinjaab in dhalmala'aani ay timaado dee muddo marka laysu sabro ayaa wuxuu leeyahay laa ma istijaabinaa dee hayna kala dhaqaaji marka hadda uma taagnin waa saxiyo waa khalade laakiin waa sababaha had iyo jeer keena in la kala tago asbaab khaarijiyaa jirta oo qoyska dabadda kaga timaada waxaa ka mid ah ashacwada waalsixru waalxasadu waalkhuraafaat in dadkan jacaylkooda iyo noloshooda wanaagsan ay qaaquuri waayaan kadibna ay sixir iyo fal iyo shacwadooda noocaas ay u sameeyaan taasina aad bay u badantahy runtii bulshada iyo maamulkuna way iska dhagatirayaan
qoysas badan baana taa u burbura oo gabadhu markuu ninku u yimaado ay kululaanaysa isaguna marka uu iyada arko ayuunbuu dhalaalayaa ilaa sidhinkii baa labadaba lagu dallacay oo balaayaa taalle kadibna marka kala dhaqaaqaan bay nafisayaan ama markuu midibo kale ka tagaa buu nafisaya inta ka horeysa uu kulul yahay arrintaasina waxay u baahan tahay in ka hortagna lagu sameeyo daaweyn sharciyana lagu sameeyo dadka waxaa wadana gacan la saaro haddii kale bulshadu caqli ahaan iyo caqiid ahaanba way u tegaysa tadakhulka waxaa ka mid a tadakhulu alasxaab waalahl ehelka iyo asxaabtoo farageliya marba qoyska ninka ay la qabaan ehelkiisu ama asxaabtuba ay la qabaan asxaabta waxaynu uga jeednaa iyada saaxiibadeed ama isaga saaxiibadii ayaa faragelin weyn ku leh oo halkuu ka maamuli lahaa qofku ama ay gabadhu tashan lahayd dad baa faragelin ku haya oo markaa aan si wanaagsan u maamulayn oo aan taageero aanay arrintu ahayne isku dir bay u taagan yihiin dadka ehelka iyo asxaabtu marka waxaa loo baahnaa gabadha in ninkeeda loo daayo ninkana xaaskiisa loo daayo oo ay ismaamushaan ay wada tashadaan ay wanaag ku wada socdaan haddii wax lagu soo kordhinayana waxtaruunuu noqdo laakiin qadiyaddu waxay u badan tahay hadmin iyo dumin waxaa dhacda marar badan dadkeenna debadda ka soo noqda ee halkan yimaada inantii in lala hadlo oo layla heblaayo dareerka adigaaba u maqnaa u soo shaqaynaya maxaa ku keenay halkan orodoo ka dhaqaaji isagiina wuxuu doonayaa inuu ka soo hijroodo waddamadii gaalada oo reerkiisii halkan ku hayo uu la soo baxsaday musbaar baa dabada laga taagay waxa la orodoo doolarkii aad reerka soo diraysay meesha uu ka joogsaday jannadii baad ka soo baxday ku noqo waa tusaale uun almuhim kala jiidashadaas ehelku ay kala jiidanayaan ama ninkiiyo gabadhii loo sheekaynaya ama asxaabtu dumar ha u badnaadeene saaxiibadu ay faragelinayaan qoyska ilaa ay bannaanka dhigaan ay marka dambe ku qoslaan arrintaasina waa mid u baahan in aad la isaga ilaaliyo waxaa ka mid a taqriibka iyo taqliidka kufaarta dadka gaalada asiiba bulshada jaaliyadeenna dabadda ku maqana la nool in badan waxa saamayn ku yeeshay ragga iyo dumarkaba afkaartii gaalada iyo isu egaysiintoodii iyo xornibadoonkii iyo diinkhilaafkii taasaa saamayn badan ku yeelatay markaa qofku waxa uu isa siinayaa xaq aanu lahayn waxaa ka imanayaa diidmo iyo khilaaf dumarka siiba ha u badnaato mararka qaarkood taasina waxay keenaysaa in reerkii wada socon kari waayo markuu qofku kaalintiisii iska waayo sidaana lagu kala dhaqaajiyo qoysaska intooda badan ee wadannada dabadda taqliidka iyo taqriibka ah shisheeyuhu gacanta ay ku leeyihiin ama mararka qaarkoodba ay soo faragelinayaan ee odhanayaan miyaa lagu hanjabaa miyaa lagula hadlaa maxaa lagu idhaahdaa dabeedna dabada laga riixayo taasina qoysas badan bay naga burburisay xikmada carbeed baa waxay leedahay man jaalasa jaanasa qofka cid la fadhiistaa wuu egaadaa un marka dambe daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka arrimaha bulshada barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey idinlana socodsiinayay anigoo ah cabdikhaadir shariif tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ammaan allah